wararka idaacadda kulmiye ka helaysa deegaan xeebeedka jasiire ee duleedka muqdisho ayaa la sheegayaa inay halkaasi isku hor fadhiyaan koox maleeshiyaad ah ee ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliiska taasoo la sheegay inay salka ku hayso dagaal culus oo halkaasi ka dhacay saacadihii aan soo dhaafnay dagaaladan oo ahaa kuwa dhowr mar la isku soo noqday ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ayaa isku haysta qaad laga keenay Kenya ee halkaasi laga dejiyo iyo ciidanka oo arrintaasi ka biyo diidan halka maleeshiyadan macawisleyda ah ay doonayaan inay qaad ka dejiyaan kadibna muqdisho soo galiyaan inta loo ogyahay 3 qof ayaa dagaalkan ku geeriyooday oo iskugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dhaawac tira kale maxamed cabdulqaadir oo kamid ah dadka deegaanka jasiira ayaa Kenya uga warbixiyay sida deegaanka wax uga jiraan marka waxa isku weeraray koox maleeshiyaad oo meesha joogo iyo rag oo boolis oo meesha checkpoint wiil oo haramada oo meesha looga tagay marka kooxdii macawisleyda ayaa weerartay ninka la yiraahdo meesha xaaladdu hadda way degan tahay marmarka qaar waxa dhacay xabado goosgooda walaal way soo fadhiyaa qasaara 3 qofood 3 askari oo boolis iyo 5 oo dhaawac la sheego ay 3 dhimasho walaal qaad baa meesha ka diga qaadkuna ma ogola dawladdu waa ka hor u jeesay marka qaadka bay dejinayaan nimankan booliskuna way hor tageen qaadka dejinay maleeshiyaadkina iyaguna meel aan u fogeynay jiraan oo dhowr kiiloomitir jirta dhinaca koonfur marka iyaguna xabadada tuurayaan dadkii oo meesha joogay waa qaxay qaar muqdisho ku carabeen qaar ruudkii galeen qaar dhinacan oo dalkeelay oo dhinacan ex-control haggiisa carabeen marka xaalad xuma ka jirta meesha dhowr mar ayaa deegaankan iyo qaybo kamid ah muqdisho waxa uga dhacay dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda dhexdooda iyo maleeshiyad hubeysan oo aan la aqoon cid ay hoos tagaan dagaaladan ayaa sidaan oo kale waxa ka dhashay khasaare badan welina dawladdu warcad kama soo saarin qaybo kamid ah suuqyada qaadka ee muqdisho waxa si qarsoodi ah loogu iibiyaa jaadka laga keenay Kenya oo khilaaf kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya halka kan Itoobiya si caadi ah suuqyada loogu iibiyo